dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waxay bilowday howlgal ay ku rarayso dadka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa gaar ahaan meheradaha soo galay wadada iyo ganacsatada yar yar ee garab raratada loo yaqaano. Hooyadani waxay wadada dhinaceeda ku iibin jirtay bagaash yar oo saaran gaari gacan ama kiriyoone, laakiin saaka waxay ku waabariisatay iyadoo dowladda hoose ay qaadatay kiriyoona dhariisarna maaragtay dhar iyo qalaanqiil iyo waxbaan ku iibin jiray galinka hore marka subaxii wax yar iibiyo duurka waaba rawixi jiro qalkaygaan tagi jiray bacbaan ku sii xidhay bacbaa afka lagaga xidhaa ma ogtahay gurigii baan iska tag miyaaban aanu filayo waxaagiiba salaada gaari gudaaf la saaraya halkan baan nimankiyo mikrofon laga leeyahay kala weecda gawaari wadaya ma alaabtaadi yar yareed ee kiriyoonkeed ba gaari la wuu xidhnaa macaa kiriyoonihi yaa qaatay dee waxa laygu yiri dawladda hoose qaatay wali kama daba tagin caruuraad ugu shaqaynaysay dee reeradan ma reerkaagun baa loo shaqeeyaa ehel yaar qaba waa loogu shaqeeyaa waxa cawlcawlana suuqa fadhiyaay umada idil baa la biiliyaay teeda kale waxa weeyaan hadba waxa la yiri dantaadu waxay tahay baa dee adduunyada lagu socda haddii aad Norway ka timid oo say Norway u ekayda tirada dalkaaga ha noqdo dee ma noqonayso Soomaad garanin hadii la idin leeyahay wadada ka kaca oo wadadii baad xiriiriyaysan oo meelihii la idinku talagalay ku ganacsada maxaad u diidantii maxkamadda hadday saaka hooyo raadinayso bil ama 5 iyo 40 cisho ii qabanaysaa in laygu soo helo Soomaad garan wax habeen laga rawaxay suuqa mikrofon suuqa lala dhexmaray ku hirgala ma jirto dawladda hoose hadday dadkeeda u tudho oo 5 iyo 10 cisho xataa bilyaysiina ay siiso wallahi inaan anigu horta kuma baxarsaameenba ummadii oo hurdo baa saaka alaab aniga kaliya alaab laygama qaadin ummadan baa laga wada qaaday Soomaad garanin dhalinyarada igaga xanuun badan dhalinyaradii wadanka iyaga keeriyoonayaasha u badan oo qalanqiishan iyo waxa naxitaayibiya ay ka shaqaysan laayeen marka la yiraahdo in la raafo ee sida shaqadii looga baabiyo dawladii iyaga ayaa ku jeedsanayaba dawladda iyada dadka isku jeedinaysa marka fadlan madaxweyne Muuse Bixi waxaan leeyahay saaxiibka dadka ka qabo dawladda hoose cashuur la idinka qaadi jiray waxaan laga qaadaa kun xaqal xashiisha iyo kun cashuur maalin walba 2,000 baa laga qaadaa ma aha markii ugu horeysay ee dowladda hoose ay howlgal noocan ah samayso, laakiin maalmo kadib ayay dadku halkoodii dib ugu soo laabtaan. Sababtuna waxa weeye dowladda hoose dadkan meel ma dejiso, howlgalkana joogta kama dhigto. maalin kasta wax la burburinayo waan arkaa subax dambe la degay baan imaada mar haddii inta la burburiyo lagu soo way fiican tahay bilicdi la hagaajiyo oo wadooyinkii la baneeyo oo dadka dhibaato ka haysata laakiin qodobku markuu fulin noqdo ee saa ku fulo waa inuu siisu ku fulaa deedna la shaqo tagaa howlo kale la qabtaa laakiin haddii maanta la burburiyo bari lagu soo noqdo wax macnaa ma samaynayo marka golaha deegaanka waxaan leeyahay waxaan waa mashruuce dadka tacaddi ka daaya ma haddii kale meesha burburisan yaana dib ugu soo noqon sideeda u balaarato mas'uuliyiinta dowladda hoose aanu isku daynay in arrimahan aan wax ka weydiino ayaanay noo suurtagelin.